horey waxaan ugu soo hadalnay wordka 2010ka qaybta waxaan ka soo hadalnay ribbonka tabska intuu macni tabska inta noocyo kala yihiin groupska waxaan kaloo ka soo hadalnay command-yada ku hoos jirta qof ayaa su'aal la yimi wuxuu yiri ma laga yaabaa inaan samaysan karo command-yo gaar ah markaas aan si degdeg aan u isticmaali karo for example haddii imika qofka mashruuc buu furtay mashruuc buu ka shaqeynayaa barnaamij buu ayuu hayaa oo shaqo oo gaar ah ayuu qabanayaa marka wuxuu u baahday dhowr command oo isla markaas uu qaban karo uu ka qabsan karo shaqadaas uu isaga hayo isagoonan ka dhaxgalin taabiyada oo ribbonka ka kooban isagoona home intuu aado ka bacda command uu ka dhex raado ama insert ama page layout-ka intuu saa samayn lahaa isaga wuxuu rabaa uu doorbiday inuu si degdeg ah wixii command-kii uu rabay inuu qabsado isla markaana shaqadiisana halkaas uu kasii wato isagoonan meel kale u jeesan wuu samayn karaa qofka waana casharka maanta aan qaadanayno customize the quick access toolbar wax la yidhaahdo waa sida u dhaqsaha badan oo qofka uu gali karo command-ka ama arrintaas uu marka uu rabo isagoonan uu adeegsanin ribbon waana kooxda Microsoft u shaqeysa markii aasaaseen ribbon waxay sameeyeen ikhtiyaaro iyo optiono oo qofka ku ikhtaaran karo shaqada uu rabo ama command-ku rabo isagoo adeegsanaya quick access toolbar wax la yiraahdo haddaba quick access-ka toolbar-ka waxay soo bandhigaysaa isticmaalka degdega ah qofku isticmaali karo haddaan iminka aan dhex galno toolbar quick access-ka toolbar-ka waa halkan ayuu ku yaalaa quick access-ka toolbar-ka waa kan baa la yidhahdaa toolkan quick access-ka toolbar-ka meesha yarta haddaan ku dhufano waxaan arkaynaa dhowr command-yo oo iska diyaarsan qayb ka mid a sax baa saaran qayb ka midna ma saarna kuwa saxda saaran macnaheedu waxay caddaynaysaa in uu banaanka inuu yaalo oo la isticmaali karo hadda safeka iyo undo iyo redo okay sorry redo baan ku dhuftay oo waa ka saaray aan ku soo celiyo mar kale redo-ga saxdan ka qaadayso ma aragtid saxdan ku soo celinaya hadda kan waxa weeyaan waa redo kan waa undo kan waa safeki waa command-yadan waa qayb ka mid ah oo de command-yada banaanka la soo dhigan oo qofku isticmaali karo hadda for example kale print preview and print haddaan ku dhufto already halkan uu yaalaa haddaan mid kale aan doorano for example spelling and grammar spelling checkiga qofku wuxuu rabaa khaladaadka inuu iska saxo automatic halkan ay ku soo fadhiisanaysaa spelling checkiga ood ku filanaysaa ka bacdi optionkii iyo ikhtiyaarkii iyo sida aad u socon lahayd halkan aad ka maraysaa haddaan doonayo inaan ka saaro saxdan ka qaadaya haddaan doonayo saxdan inaan si toos aan saxdan u galin waxaan ka aadayaa isaga print preview-ga right click baan siinayaa kadibna waxaan aadayaa remove faa'iidadu leeyahay hadda waa maxay tahay quick access-kan toolbar-ka faa'iidadu leeyahay waa faa'iidooyin badan buu leeyahay laakiin waxa ugu horeeya faa'iidooyinku leeyahay for example ka soo qaad inaan ku jiro qaybta insert-ga aan ku sii dhex jiro footer-ka maadaama aan footer-ka ku sii dhex jiro shaqo aniga maadaama aan ku hayo meesha waxaa ila qurux badnaatay highlight inaan raadsado oo highlight-ka aan isticmaalo highlight-kana wuxuu ku jira home wuxuu ku jira qaybta fontsiga groupka fontsiga highlight-ka waa kan highlight-kan intaan u mari lahaa tabskan ku dhufan lahaa kadibna aan raadin lahaa command-ka waxaana ila qurux badnaatay anigoo ku jira qaybta footer-ka oo shaqada footer-ka anigoo haya in aan isla markaas access aan ku samayn karo ama aan gali karo maxaan ku dhahay highlight-ka highlight-ka ayaa tagaya right click baan siinaya aad baan leeyahay igu dar to quick access toolbar aan ku dhufanaya halkaan uu soo fadhiisanaya maadaama insert aan ku jiray footer-ka qaybta footer-ka aan ku jiray oo shaqada meeshaan ku hayay isla markaas by click on de one click clear anigoo ku dhuftay ayaa waxaan aadayaa shaqada highlight-ka okay taas faa'iidooyinka ka mid ah ayay tahay faa'iidada labaad waxa weeyaan toolbar-ka command-yo badan baad keensan kartaa laakiin waxa qurux badan inaadan badayn command-yada oo command-yo kooban sababtoo haddaad badisid waxay noqonaysaa inaad confusing ama aad ku wareertid saad u heshid command-ka rabtay dhowr command baad saari yani command-yo badan isticmaali maysid command-yo aad dhihi kartid mar walba waa isticmaalaysaa ayaad saaranaysaa hadda kan oo kale
right click waan siinaya aad baan leeyahay waa ka halkaan ii taala for example mar walba waxaa rabaa bidix inaan ka soo bilaabo haddoo kale boltiga oo kale right click waan siinaya add quick boltiga waan saartay saasaad ku wadanaysaa shaqooyinkan waa quick access toolbar shaqadana way ku fududaynaysaa si dhaqsi aan waa u isticmaalaysaa maxaan ku dhahay commandka doonisid adigoonan aad ka dhexgalin tabska oo ribbon ku yaala waana runtii waa waqtiga aad iyo aad bay macni ku save garaynaysaa shaqadaadana si degdeg ah ayaad ku dhamaysan kartaa